warbixintan waxaynu ku dul istaagi doonaa taariikhda Jamhuuriyadda Somaliland oo kooban sanadkii 1960kii dalkani Somaliland ayaa mustacmar u ahaa sidoo kalena guumaysan jiray boqortooyada Ingiriiska kuwaas oo xornimada ay ka hor qaadeen dalka Soomaaliya oo sidoo kalena guumaysan jiray Talyaanigu la soo noqoshadii xornimadii 1991kii 18 May waxay ku timi si kala duwan oo dareen midow waxayna ku dhalatay go'aan ummadeed kaas oo loo huray naf iyo maalba dagaaladii jabhadaha ee SNM horseeday taas oo keentay inay burburaan dawladihii militariga ee rajiimka Maxamed Siyaad Barre. Somaliland waxa ka soo taliyay 5 madaxweyne sidoo kale aftida dastuurka qaranka waxa loo codeeyay 31 May 2001 waxaana uu codeeyay boqolkiiba 79 doorashadii dawladaha hoose iyo asxaabta siyaasadda ayaa iyaduna dhacday 16 November 2002 doorashooyinkii madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin Abriil 2003 doorashadii golaha baarlamaanka 28 September sanadii 2005 27 July sanadkii 2010 waxaa loo codeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo 17 July sanadii 2017 waxaa madaxweyne loo codtay madaxweynaha haatan ka taliya Muuse Biixi Cabdi 31 May 2021 waxaa la doortay mudanayaasha golayaasha deegaanka iyo wakiilada markii koobaad ka qabsantay Somaliland doorasho isku sidkan oo noocaas iyo kala geeska Afrika. Mukhtar Maxamed Cabdi Silaanyo wararka telefishinka caalamiga ee Somali TV gudaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.